السلام عليكم. magacaygu waa xasan aadan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgala waddankan Jarmalka waxaan doonayay maanta inaan fariin caafimaad halkan idinka soo gudbiyo fariinteedu laba qodob ay qaybsami doontaa mid waxay qaabilsanaan doontaa dadka bulshada caadiga ah ay wacyigelin u ahaan doontaa midna waxay ahaan doontaa experience aan u gudbinayo dadka howladana caafimaad laga yaabo inay cudurkan waajahaan marka koowaad cudurkan waxaa keena virus ka kooban 7 nooc afar ka midii horeynu naqaanayo boqolkiiba 10 ka mid ah hargabka caadiga ee sanad walba dhacay keenaan saddexda kalena mid waa SARS-kii berigii China iyo Korea soo maray midna waa MERS Sacuudi Arabiya iyo meelahaas Carabu ka dilaacaa ka saddexaadna waa kan imika socda COVID-19 la yiraahdo astaamaha iyo sidee ku yimaadaan iyo ka hortagaba imadan baa laga hadlay marka waxaan isku dayi doonaa inaan warka soo koobo cudurrada faafa waxaanu ku اعتبارنا ونكو إجنا بحالا لا يلاحظو R0 أما basic reproductive number أو تاسو معنى دي هاي عذر كان مركو قف كان ما انتهايو إمي سقف وقف كان وسي كنت بين كرايا عذر كان مركو الله يقول تانا مركاسو حمرا يا صدق قف يعني قف كستو عذر كان ما انتقى صدق قف أو كان وسي كنت بين هيا هذا أمر برديقو تصالها عذر كي شدا عادين وذا نقانو qofka qaba 15 qof uu sii gudbiyaa sida caadiga waa numberka statistically sida loo yaqaano marka cudurkan saddex qof uu sii gudbinaya tan leedin leeyahay waa in dadka guryahooda ku jiraan ama bandooyada loo soo rogaya waxa weeye waxaan isku dayaynaa in numberkaas aan hoos u dhigno oo R0 kaasi marka uu 1 ku noqdo ama uu maxaan dhahday 1 wax ka yar noqdo macnaheedu waxa weeye cudurkan waa la control karayaa bulshadii kuma sii faafi doono talabaad maxaan dhahdaa leedin leeyahay waa in la farxasho ama la isnadiifiyo waxa weeyaan viruskani meel kasta oo qof viruskan qabay ku qufo ama uu taabtay oo laga yaabo inuu viruskii qayb kamid ku hadhay waxa laga yaabaa inuu maalmo 3 ilaa 4 isha gaarsiisan cudurkan ku sii noolaado marka adigoo laga yaabo inaad bas raacday haddii aad gacantaadii meeshii bas ka saartay waxa weeyaan cudurkiiba laga yaabaa inuu sidaas oo kale uu ku sii fido fariinta labaad aan u gudbinayo bulshada caafimaadku waxa weeyaan kow sidaan waxaan soo koobi doonaa sidii experience-kan oo ku waajahnay cudurkan waddanka marka la joogo lagu waajaho kow waxaa loo sameeyey dadkan waxaa loo sameeyey meel u gaara qol u gaaray dadkan yimaadaan qof kasta qof leh xumad leh laga yaabo inuu ka yimid eriyadii maxaa xanuunkan ka dilaacay waxay imanayaan qolkaas marka koowaad أنا نيرست وقال يصير خيرك وقال يا أبا وحسي حنا يقرب كل سكوير عني قلب على سكوير عني وضروري ومعنا هاي ستان وأيو طريانة واحد كذا هاي تديو كل شيء يقرب على أنت ودينا مركز معود خلف وبنتين مرة تكود وهذا طلبات وحنو تبي نقف مركو كنا نوارجنا حنو قيمة نقف كان كلينيكال يسوي هاي هذا يقف كان نقف لنا يري هاي أنت بدنا أساسي وبدي هنا ونعور كان سامع بدنا كيارن أنت بدنا وانوسا وين أسواق كده تنقولي سانو درنا natiijada iyo maxaan dhahdaayay meelaha laga xiriiriyo addresskiisa meesha ku nool yahay waxa soo waxaan u gudbinaa wasaaradda caafimaadka idin wasaaradda caafimaadka hadhow toole qofkan daba raacda hadduu positive noqdo dadkii uu la kulmay meeshuu wax ka iibsaday qof kasta oo direct contact la lahaa waa la baaraa taas waa mid talabaad hadduu qofkani yahay xaaladiisu yara adagtay ama ay maxaan dhahdaa yara xun tahayna cusbitaalkan gelinaa boqolkiiba 15 ka mid ah dadka cudurkan ku dhacay cusbitaalada kale boqolkiiba 8 guryahoodii bay ku noqdeen oo iska bogsadeen markii dambe marka dadkaas waxa ugu muhiimsan ee lagu la tacaala waxa weeyaan kow inaad haysatid ICU leh awood ay qofkan ku intubate karayn karto iyo ay qofkan ugu samayn karto maxaan dhahdaay neefsashadii automatic ahayd mashiinada haddii intaa la haysto waxa laga yaabaa in ay dadkana ku filnaato in muddo ilaa 8 cisho hadduu qofkani mashiinadaasi ku neefsado waxa laga yaabaa in cudurkani waxay u badan tahay in cudurkani uu ka soreeyo mushkiladda kale meeshan taala waxa weeyaan cudurkani muddo kooban buu jiray sidaas darteed ma jiraan studies boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo cudurkan kur la xiriira waa wax cusub oo dhawaan soo baxay China trials badan bay sameeyeen marka trialskoodii experience ahaan looga qaato uu mooyaane sidii ma aha la oran karo boqolkiiba boqol waxaanay cadaysaa ma ay diiday tal ay dawooyinkan ay imaka la sheegay Trump iyo qolyada CDC ay xalayto la ka sheekeynayeen hydroxychloroquine ay yiraahdo
oo dawo markeeda hore malaariyada loogu talagalay marka labaadna la yaqaanay muddo 10 sano ah inay leedahay effect ay virusyada kaga hortagi karto laakiinse effectka waxa lagu cadeeyo kaliyaata study yani culture viruska loo sameeyay markii dawada lagu daray baa la arkay in viruskii wax ka dili karto laakiin ma cadda markuu imika viruskani sababada fadhiyo qofku afka ka liqo dawadan ma haysano mid iyadoo inhalation oo sababada toos loogu neefsan karo maruu qofkani liqo ma cadda dooska ugu baahay qofkani si ay sababadii dawadan ugu gaadhay isla markaana viruskan uga caawiso talabaad antiviral drugs la isticmaalayo virusyada ka hortagay dawooyinkii AIDS-kii waxaas ka mid yihiin iyo laftoodu waa dawooyin rajo badan la qabo oo laakiinse aan ilaa imika للأسف أنا هينين وحطين وبقولكي وبقول أنا إنسان وتعصي صح تاعي مشكلة ده كلام مكا سي دوّدان كلهيدروكسيكلوكوين رح يداو حوار مارسيلي كوسمين استدي مع المدوي تولي لبست عشقار بس وصارين سريقة لكن لبدا جروب يسبر بديجان يقولنا دوّدان سي يقولنا عن السنين جاب كده دو بوك الدوانا عذر كانوا وحلا يقانين وضدك وبدن صامية ضدك واوينيه مرجعت عرفت يدو استدي وحبا maxaan ahayd kasiya laakiin xaaladdu halkay taagan tahay baa waxay noqotay nin daad qaaday xumbo cuskayo waxa weeyaan wax kasta oo la yeelaado waxaas laga yaabaa inay caawiso waxaan isku dayeynaa inaan sameeyno waayo waxay maraysaa heer ah inuu qofkani ama u dhinto ama inuu xuun lagu tijaabiyo inuu ilaahay ku badbaadiyo in kalaba pointka saddexaad maxaan ahayd ku sii daraya waxa weeyaan in cudurkan ka baranay cudurkan inta badan ma saameeyo carruurta sababta kaliya inuu halay waxa weeyaan cudurkan afartiisa groupkiisa afarta nooc ee kamid ah keena hargabku wax inta badan ku badiyeen carruurta yaryar marka waxa jirta immunity-ga waxaan dhahay qayb la yiraahdo cross reactive immunity taasoo ah virus ay walaaliyiin hadduu jirkaaga mar soo galay uu iska difaacay waxa suuragal ah in difaaca uu wax ka garto viruskan cusub taasoo markaa keenaysa laga yaabaa in carruurtan cudurkan uu ku badnaan waayo maxaan dhahaa fariimaynta ka badan insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan idin la wadaago oo qoliyaha caafimaadka weliba gaar ula sii xiriiri doonta aad baa u mahadsantihiin warka ma sii badinayo intaas ku soo koobaya salaam